السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان waxaan ku baranaynaa waxa loo yaqaano chest radiograph ama dadka u yaqaanaan x-ray. marka waxaan ku baran doonaa dhowr cashir oo isku xiga ilaa 10 ama 12 cashir isku xigta waan ku baran doono sida loo qiimeeyo image-ka oo x-ray-ga ah, sida loo jeegreeyo technical quality, sida loo jeegreeyo airway-ga, sida loo jeegreeyo muxuu ahaa waxyaalaha ka kooban yahay thorax ha noqdo lafaha, sambabada, wadnaha iyo mediastinum-ka iyo xeedada waaweyn. marka wuxuu naga saacidi doonaa ama uu ka saacidi doonaa qofkii oo medical student ah ama any healthcare professional ah, wuxuu ka saacidi doonaa in uu barto basics-ka oo sida loo tarjumo chest radiograph. ma ahan cashiro advanced ah, marka waa cashiro loogu talagalay basic ah qofkii arday oo medical student ah oo baranaya aasaaska oo chest x-ray ama chest radiograph ama muxuu ahaa aasaaska oo tarjumaada oo chest x-ray. marka meeshan waxaan ku arkaynaa taariikhda x-ray-ga ah waa wuxuu ahaa history oo accident ku dhacay uu ahaa ninkii la oran jiray Jarmalka ahaa William Röntgen. xaaskiisa ayaa x-ray beam oo si accident ah gacanteeda ugu dhacay ayaa macnaha sawirkan ku sawirmay. waxayna noqotay macnaha wax adduunyada macnaha dhanka medical advance wax weyn ka bedeshay, sababtoo ah markii hore awood looma yeelan jirin qof bini aadam oo nool in oo jirkiisa gudihiisa la arko. qof markuu dhinto oo kadib lagu sameeyo postmortem examination oo la qalqalo ayaa gudihiisa la arki jiray waxa uu dhintay ama waxa ku dhacay. laakiin x-ray waxay saaciday qof bini aadam oo nool oo xanuunsan in jirkiisa oo gudaha la arko jirada ka jirta ama dhibaatada ka dhacday si oo intervention oo loogu daaweyn karo loogu sameeyo. marka waa test aad iyo aad muhiim u ah oo macnaha wax weyn kusoo zaa'idiyey horumarka oo medicine boqolkii sano ugu dambeeyey. marka waa macnaha test aad iyo aad muhiim u ah oo si fudud lagu sameyn karo oo dhowr minute qaadanaya, isla markiina qofka naftiisa lagu badbaadin karo haddii uu ku dhacay shay halis ah emergency ah oo sambabadii oo qofkii oo pneumothorax oo kale uu ku dhacay oo sambabkiisa waa sida buufin oo kale oo buufsan. buufinkii marka haddii aaridii ay ka baxdo asagana oo u soo yaraado qofka halis weyn ayuu ku jiraa inuu si degdeg ah u dhinto. ama haddii qofka cancer uu kaga dhacay sambabada oo si fudud lagu arki karo ayadoo hadda macnaha oo CT scan uu soo baxay oo muxuu ahaa oo aad iyo aad ugu sareeya macnaha chest x-ray, laakiin still wuxuu ku tusayaa in dhibaato meeshii ay ka dhacday si oo CT scan qofka loogu sameeyo oo radiation tira badan exposure qofka loogu sameeyo ama in laga maarmo inaan CT loo baahanin oo qofkii oo aan laga arkin wax abnormality ah. waa raqiis, waa aad iyo aad ayuu raqiis u yahay chest x-ray. radiation kiisan aad iyo aad ayuu ugu yaryahay markii loo barbar dhigo CT scan. waxaan u maleynayaa in oo 500 oo x-ray haddii lagu saaro inuu la mid yahay hal mar oo x-ray lagu saaray oo kale. waana dose aad ugu macnaha CT-ga waa dose aad u sareeya halka chest x-ray dose-kiisa uu aad iyo aad ugu hooseeyo. taas marka waxay ka dhigaysaa in oo macnaha wax safe la yiraahdo ma jiro markii oo radiation uu yimaado. the more radiation qofka oo jirkiisa oo exposure loogu sameeyo riskiga ugu jiro in oo ionization-kaas dhibaato uu keeno DNA-giisa oo cancer uu ku dhaco. laakiin aad ayuu ugu halis yar yahay marka loo barbar dhigo CT scan. qaabab badan ayaa jira oo loo qaado oo loo yaqaano posterior lateral macnaha waxa laga wadaa qaabka loo qaado x-ray-ga ayaa noo imaan doonto. qaab oo x-ray beamka in oo dhanka dhabarka ah uu ka soo maro ama dhanka xabadka inuu ka soo maro. markii dhanka dhabarka uu soo maro waxaa loo yaqaanaa PA AP lateral. cashada inoo soo socda ayaan waxaas oo dhan ku baran doonaa. sidoo kale physics-ka oo chest x-ray-ga ah muhiim uma aha qofka technician-ka ah, macnaha aan leeyahay qofka clinician-ka ah in oo physics tira badan aad taqaan. dadka qaar ayaa markii x-ray ay maqlaan
barashadiisa isla markii ka naxaya macnaha physics badan inuu yahay physics badan oo murug ah macnaha qofka uma baahna muhiimadaada waxay tahay haddii technicianka uu qaado in aad tarjumi kartid waxa meeshaas oo pathology oo ka dhacay laakiin qofka technicianka waa inuu yaqaana physicska iyo qaabka oo parameterka wax ka bedeli kara muxuu ahaa quality-ga oo x-ray macna markii la qaadayo sidoo kale historygiisa wataan hore uu soo sheekeynay oo by accident in lagu helay oo Rontogen xaaskiisa gacanteeda oo ay dhahday anigoo aakhiraad ah oo kale ayaan is arkay soo marka saan soo sharaxnay taariikhda macna wax weyn ayuu ka bedelay x-ray soo marka indicationkiisa sababaha oo x-ray qofka loo saaro muxuu noqon karaa wuxuu noqon karaa qofkii xanuun haya diagnosis in lagu sameeyo ama lagu baaro for example qof oo neeftiisa macna breathlessness ay hayso qof neeftuur uu hayo oo kale oo neefta ay ku yaraanayso qof dhabarka uu xabadka uu ka xanuunayo qof qunfac uu hayo muddo oo bilooyin ama isbuucyaal qof dhiig ma tagaaya weight loss in qofkii uu caatoobay sabab aan la aqoonin uu caatoobay soo marka waxaas oo dhan waxay noqonayaan waxyaalo oo muxuu ahaa indication u ah chest x-ray qofkii in la saaro sidoo kale haddii qofka loo baahdo in oo central line ama catheter in laga geliyo xaydadiisa waaweyn wuxuu u baahan yahay x-ray si loo xaqiijiyo tubada inay ku jirto meeshii la rabay in la geliyo sababtoo ah haddii tuba la rabay in la geliyo superior vena cava waa in x-ray la saara oo la arkaa in tubadii ay gashay superior vena cava aysan u gudbin right atrium ama right ventricle soo marka wuxuu ka saacidayaa haddii lineyaal badan qofka uu ku jiro haddii uu talagashay esophaguska line haddii loogu talagalay haddii oo muxuu ahaa trachea loogu talagalay macnaha tuba meeshii loogu talagalay inay ku jirto in kale ayaa lagu baari karaa sidoo kale waxaa lagu baari karaa waxyaalo badan oo muxuu ahaa pathology oo ku dhici kara xabadka ama sambabada kuwaas oo ay ka mid yihiin in oo sambabkii oo aaridii ay ka baxdo oo uu soo yaraado sida pneumothorax waxa loo yaqaano oo kale oo aan baran doono haddii alla uu idmo casharada noo soo socda noogu imaan doono soo markaasaan arkeen waxyaalo badan ayaa indicationkiisa ah macnaha oo loo sameeyaa ama loo qaadaa chest radiograph soo marka qaabka loo qaado waxay tahay oo basic ah waxaa u baahan tahay radiation macnaha waxa loo yaqaan electromagnetic radiation ama shucaac kaasoo ah macnaha waxyaalo ay soo deeyaan element uu soo daayo oo radiationka shucaacaasna siinaya electromagnetic radiation waxa waaye waves oo sida oo iftiinka oo kale ama gamma rays ama infrared rays oo aad iyo aad macnaha frequencies u badan yahay ama radio waves oo frequencies aad u yar yahay iyo microwave oo kale kuwan marka electromagnetic wave oo uu ka mid yahay x-ray iyo gamma rays-ka frequencies ayaa aad iyo aad u badan radio waves-kana frequencies ayaa aad macnaha u kala dheer soo marka wuxuu naga saacidayaa beamkaas in oo visualize uu ku sameeyo qofka bini'aadamka tishugiisa ah qaabka uu sameynayana waxay tahay in meesha markuu dhex maro tissue dhexdiisa oo nooc yaal uu ka kooban yahay u kala saarayo soo marka waxaa u baahanaa x-ray source shucaaci meesha uu kasoo baxay ayaa u baahannahay waxaa loo baahan yahay qofkii oo la saarayay muxuu ahaa raajadii iyo film oo detector ah sida oo macnaha markii oo kaamirooyinkii markii hore oo old la isticmaali jiray oo filmka la gelin jiray oo kale ama kaamirooyinkan hadda digitalka oo kale u baahneen film markii hore waxaa la isticmaali jiray film oo muxuu ahaa loogu talagalay in oo beamkaas uu ku dhaco kuwaasoo marka oo laga arki jiray muxuu ahaa anatomiga ama pathologyga meesha ka socda laakiin hadda waxaa soo baxay digital detector sida hadda kaamirooyinka hadda soo baxay adduunyada u yihiin digital muxuu ahaa camera ayaa marka hadda detectorka wuxuu isku bedelay asagana digital oo waa la iska dhaafay filmkii markii hore old la isticmaali jiray soo marka x-ray beam oo meesha ka soo baxaya shucaaci markuu soo baxay qof subject ah oo ku dhacayo iyo filmkii ama digital detectorkii oo ka hooseeya kaasoo marka uu ku dhacayo beamkii uu noo soo saaray x-ray soo marka qaabka marka oo arintaas ay wax noogu saacidaysa ayaa waxay tahay
in beamkaas ama shucaacaas oo kasoo baxay x-ray muxuu ahaa mashiinka in kuwa qaar ay si toos u dhex maraan jirka oo macnaha aysan istaagin, kuwa qaar in oo tishuga oo absorption uu ku sameeyo ama uu dhex galo, kuwa qaarne in oo muxuu ahaa geesaha uu kala baxaan. macnaha haddii x-ray beamyaasha ay yihiin muxuu ahaa leenyaal macnaha saas u socda kuwa qaar geeskan ay marayaan, kuwa qaarna waa dhex marayaan. kuwaas dhex maraya marka qaar waxaa celinaya sida wadnaha oo kale haddii uu ku aado, macnaha qaar waxay ku harayaan meesha, qaar sanbada ay ku harayaan, kuwa qaarna waxay dhex maraan meel oo muxuu ahaa macnaha muxuu ahaa gaas, kuwaasoo marka oo density kala duwan oo sheegay. meeshan oo kale markaan fiirino haddii beamkii macnaha haddii meeshaan fiirin hadda qofkan oo gacantiisa oo kale waaye, beamkii saan arkayno density kala duwan ayaan arkayna. taas waxay tahay in meeshaan filimkan uu ku dhacay dhammaan beamkii shucaacii asagoon waxba celin. that's why marka mugdi uu yahay. intan waxaan arkaynaa in qaar ka mid ah x-raygii ama shucaacii aysan gudbin oo laftaan ay celisay. kuwa qaarna meeshan waxaan arkaynaa soft tissue uu ku jiro oo sida oo muxuu ahaa muruqyo ay ku jiraan oo ka macnaha iftiin yar lafta. so markaas wuxuu kutusaya marka beamkaas kuwa qaarna in ay gudbayaan ayagoon wax celinaya jirin sida meeshan oo kale, in kuwa qaarna ay celinayaan laftii ama soft tissue-gii oo ama dhiiggii ku jiray oo na tusaya marka isbedel oo density ah. taas marka ayaa waxay naga saacidaysaa in oo anatomigii oo uu noo sawirmo, kaasoo aan ku arki karno meeshii oo cilad ay ka jirto ama muxuu ahaa dhaawac u soo gaaray. so marka qaabka loo qaado x-rayga waa qof walba oo qof weyn ah at least ama wuxuu arkay qof oo raajo la saarayo ama isagiiba in la saaray, qofka saan ayaa loo joojinayaa. inta waxaa waaye x-ray sourcegii hadda aan soo tilmaamaynay. meeshan waxaa kasoo baxaya x-ray beam ama shucaacii. qofkii meeshan ayaa la joojinayaa, gacmihiisa geeskan ayaa loo bixinayaa si scapulaha oo meeshan ku yaalo. scapula waa laftaan oo meeshan saaran, kadib saas ayaa loo soo geeska loogu soo bixinayaa si oo muxuu ahaa fieldiga oo sambabka oo dhan oo loo arko oo laftaan oo scapula aysan u celinin. so marka laba qaab ayaa jiro oo loo yaqaano PA view iyo AP view. PA view waxaa waaye in x-ray sourceka marka uu soo baxo shucaaca in oo kow uu ku dhaco qofkii dhawarkiisa, xabadkan oo u saaran yahay qofkii filimka saan hadda arkayno. qaabka kalena waxaa waaye qaan hadda soo arkaynay in shucaaci marka uu soo baxo kow uu ku dhaco muxuu ahaa maxaa qaybta hore, filimkana uu dul saaran yahay dhabarka. so marka markii filimka uu dul saaran yahay dhabarka oo dhanka horena uu shucaaci ku dhacayo waxaa loo yaqaanaa AP view. markii filimka uu dul saaran yahay xabadka, x-ray beamkan uu ku dhacayo dhabarka waxaa loo yaqaanaa PA view. PA view macnaa posterior ayuu kow ku dhacayaa shucaaca, kadibna wuxuu u gudbayaa anterior. AP viewna waxaa waaye shucaaca kow wuxuu ku dhacayaa macnaa qaybta hore, kadibna wuxuu u gudbayaa qaybta posterior. so marka arrintan sababta ay muhiimka u tahay cashirka oo kan xiga ayaan ku baran doonaa. muhiimad aad u weyn ayay arrintaas leedahay, taasoo marka u go'aaminaysa quality-ga uu lahaanayo radiografka oo soo baxaya haddii PA loo qaaday ama haddii AP loo qaaday. so marka saan waxaan ka hor soo sharaxnay shucaacaas oo dulmaraya jirka dhexdiisa tishuga ah wuxuu kaa saacidayaa in waxyaalaha kala duwan ee uu ka kooban yahay anatomiga in aad ku arki kartid. marka wuxuu ku tusayaa grayness ama shakligan muxuu ahaa kalkan greyga ah oo kala duwan oo mid walbana uu determine gareynayo density-ga shaygaas ayaa wuxuu kaa saacidayaa grey oo kala duwan, macnaa kalarayaal kala duwan oo grey ah oo in uu ku sawiro. for example meeshan oo xabadka ah saa ognahay waxaa ku dhex jira ama ka dhex buuxa ama neef tira badan, sababta waa neeftan aan neefsanayno oo noo tegay sambabada. meel walba oo jirka waxaa ku dhex jira fat, waxaa ku dhex jira soft tissue sida muruqyadii oo kale, connective tissue, waxaasoo dhan ayaa ka buuxa. waxaa ku jira lafo
saa ogtahay xabadkaaga waxaa ka buuxa ribs ama lafaha, waxaa ku jira clavicalkii ayaa ka buuxa sa arkeyno gacmahaaga muxuu ahaa lafta humerska ee meeshan ku arkeynaa. meeshan waxaan ku arkeynaa vertebrae-ga. waxaan arkeynaa haddii shay oo foreign ah ama waxyaalo oo dibadda kaaga yimid aan liqdid oo kale oo uu ku maro meesha oo cunaha macnaha raashinka uu maro esophaguska ah, ama haddii tracheaha uu kuu galo oo samabada uu kugu gudbo, waxaas ayaa lagu arki karaa haddii uu yahay shay oo x-rayga tusinaya sida bir oo kale ama laf oo kale hadday tahay. laakiin haddii uu yahay shay x-ray ay kasoo muuqanaynin oo sida haddii oo loos oo kale oo samabka uu ku galo, way adag tahay in la arka sababtoo ah densitygiisa ayaa yar. so marka waxaa loo kala qaybiyaa shayaashan marka oo ku jira xabadkaas waxaa loo yaqaana radio opaque iyo radio lucent. radio opaque waxa waaye shay markii oo muxuu ahaa beamka ama shucaca uu dhex maro aan gudbaynin. haddii uusan gudbin macnaha wuxuu noqonayaa shay oo white ah, macnaha shay cad ayuu noqonayaa. shay walbo shayga uu ka celiyo beamka waa ka cad yahay. haddii oo beamkii ama shucaacii oo x-rayga ahaa uusan celinaynin oo toos u gudbaayana madow ayuu noqonayaa. saa arkeyna hadda muxuu ahaa sawirkan meel waxaa arkeynaa oo madow ah. haddaa meeshaan fiirisid waxaa arkeynaa dark inay tahay. sababta waxay tahay beamkii x-rayga ah si toos ayuu u gudbay, wax celinaya ma jiro, filmka ayuu ku dhacay. haddaan soo laabano shayga kale ugu iftiinsan meeshan waxaa waaye shaygan kan waxaa waaye cunug kale ayaa wuxuu liqay lacag oo coin ama kumi ayuu liqay oo u istaagay esophaguska meesha oo raashinka uu maraya. metal sa arkeyno waa cad oo zaa'id ah. waxaa kusoo xiga bone ama lafaha. sa arkeyno waxaano dhan waa lafo. lafahaas marka ayagana way cad yihiin, laakiin cadaantood waa cadaan ka yar birta. waxaa ku xiga soft tissue. waxaan oo soft tissue ah sida waxaan arkeynaa beerka oo kale, calooshii oo kale, waxaano dhan waxaa ka buuxa soft tissue. meelahan kana arkeyna waxaano dhan waa soft tissue. waxaan arkeynaa fat oo ku dhex jira meelahan oo inta oo kale oo ka buuxa muxuu ahaa meelahan oo u dhexeeya macnaha subcutaneous tissue iyo meelahaas dhan waxaa ka buuxa fat. waxaan arkeynaa meel ay ka buuxdo isheeg neef sida sanbabada oo kale. meeshaan dhan waxay mugdi u tahay. meeshaan arkeyno iyo meeshaan arkeyno waa neef ama ayaa ka buuxda. soo marka kala duwanaanshaha density-ga oo ay leeyihiin tissuega oo ka buuxa thorax-ka ayaa wuxuu noo suurtagelinayaa in density-yaal kala duwan meeshii aan ku aragno, taasoo nagu saacidaysa marka in haddii meeshan cilad aan ku aragno aan sheegi karno meeshii in samabada dhibaato inay soo gaartay ama lafihii ama wadnihii. sababtoo meeshan waxaan ku arkeynaa wadnihii, inta waxaa arkeynaa calooshii, inta waxaa arkeynaa beerkii. waxaan qiyaasi karnaa meesha waxaan ku dhacay. meeshan waxaa arkeynaa diaphragmka oo noo saacidaya marka density-gaas kala duwanaanshaha density-ga tissuega ku jira xabadka ayaa nagu saacidaya marka. soo marka markii oo radiographkii lasoo qaaday waxaa muhiim ah in si oo systematic ah loo jeegareeyo. kaas waxaan ku baran doonaa cashar noo imaan doono. systemkaas oo loo yaqaana marka ABCDE ayaa loo yaqaanaa. laakiin inta oo systematic aadan u jeegareynin kahor waa su-aal la isweydiisaa. macnaha radiographkaas aad fiirinaysid ma yahay technical qualitygiisa mid aad isku haleyn kartid. macnaha technical quality waxaa waaye in oo muxuu ahaa si saxa loo qaaday uusan ahayn quality oo aad iyo aad u xun ama tayadiis aad iyo aad u liidato oo waxay pathology ah aan diagnose lagu samayn karin. haddaa ku samaysidna aan ahayn wax la isku haleyn kara sababtoo ah technicalka ayaa wax ka qaldan. soo marka waxaa muhiim ah inaad isweydiisid su-aalo badan. su-aalahaas marka waxay kala yihiin meesha markii chest x-ray radiograph aad fiirinaysid xasuusnow haddii oo saana u fiirinaysid gacantaada midig waxaa xiga dhanka bidix qofka oo aad fiirinaysid waa qofkaasoo horjeeda oo kale hortaada jooga. soo marka gacantaada midig waxaa ku aadan dhankiisa oo bidix, gacantaada bidixna dhankaaga bidixna waxaa ku aadan dhankiisa midig. ha isku qaldin marka
waxaana ku fahmi kartaa wadnaha meesha uu jiro sababtoo ah wadnaha wuxuu u badan yahay dhanka bidix soo marka mar walba xasuusnow waa qof hortaada taagan oo aad fiirinaysid oo kale oo wejigiisa aad fiirinaysid xasuusnow marka waxaa muhiim ah markii aad check garaynaysid technical quality-ga inuu fiican yahay oo radiograph-kaasi in kale in arki kartid meeshaan loo yaqaano ABCs waxaa waaye meeshaan sambabka oo ka koreeya clavicalka laftaan waxaa waaye clavicalka kana clavicalka waaye qaybtaan ka koreysa clavicalka waxaa loo yaqaanaa ABCska ma arki kartaa ABCska ilaa meeshaan laga gaaro loo yaqaano costophrenic angles ayaa loo yaqaanaa ma arki kartaa macnaha wax uu kaa qarinayo maa jiro waxaa kaloo isweydiisaa scapulae ama ah laftaan oo garbaha gadaashooda saaran oo laftaan humeruska ah oo pathology ah oo sambabkii ku jira lafahan oo clavicalka ah iyo macnaha spine-ka oo dhexda ah waa inuu u jiro distance oo isla eg macnaha labadan waa inay isla ekaadaan taas waxay nagu saacidaysaa inaan jeegareyno technical quality-ga oo fiidiya aan dhahe radiograph-kaas in la isku haleyn karo iyo in kale waxaa kaloo muhiim ah inta rib u arki kartid 1 2 3 4 5 posterior ribska u arki kartid iyo anterior ribs u arki kartid soo marka cashirkan ma ku baranayno technical quality-ga oo sida loo jeegareeyo cashir kale si faahfaahsan ay ku baranaynaa laakiin muhiimadda waxay ahayd in aadan iskaga boodin inaad tarjuntid waxa uu yahay laakiin aad gadaal u noqotid oo isweydiisid sawirkan ama videohan ama radiograph-kan ma isku haleyn karaa quality-giisa inuu fiican yahay lafaha oo gadaal ma arki karaa posterior ribs anterior ribska ma arki karaa kuwa posteriorka ilaa waxaa la rabaa 9 inaad aragtid haddii oo PA uu yahay anterior ribs ilaa 7 inaad arki kartid haddii macnaa PA uu yahay in arki kartid xadadadii oo sambabada aadayay dhiigageena inaad arki kartid si oo waadax ah muu arki kartaa qofkii inuusan iswareejinin sababtoo ah waxaa laga yaabaa qofkii oo raajada la saarayay haddii oo AP uu yahay waa kii aan sheegaynay haddii oo beamka oo marka hore caloosha qofku kaga dhacayo macna dhanka kor oo xabadka sababta arrintaas ay ku dhacday muhiimadiisana cashir kale aan ku sharxi doonaa hadduu alla idmo oo kan ku xiga oo aan ku barnayna technical quality-ga soo marka rotation qofka inuusan sameynin oo gees uusan ahayn sababtoo ah haddii qofka gees uu seexdo waxaa laga yaabaa in sambabkii oo uu la soo baxo density oo aan loogu talagalin ama meeshaan oo mediastinumka ah in uu weynaado taasoo marka oo macnaha si qaldan oo diagnosis qaldan qofka loogu sameyn karo xanuun meesha aan yaalin oo qofkii la dhihi karo xanuunkaas ayaa hayay oo kali uu yahay qalad ka yimid qofkii oo iswareejiyey taasoo marka qaldi karta qaabka oo loo sharxayo ama interpretation loogu sameynayo chest radiograph-ka soo markasaan arkaynay saddexdan waxaa waaye qaababkii hadda marka kuwa idin soo sharxayay kan waxaa waaye PA view waxaa waaye in oo muxuu ahaa beamkii uu kow kusoo dhacay dhabarka kadibna xabadka uu dul saaran yahay filmka kan waxaa waaye gees oo ah qaab kale oo loo qaadi karo kanna waxaa waaye PA aan dhahe AP macnaa kan AP view waaye kanna waxaa waaye PA view marka PA view ayaa mar walba ka fiican AP view sababtoo ah AP view-ga marka la sameynayo waxaa waaye sidiisaba qof xanuunsan oo intensive care ku jira emergency department ku jira oo aad iyo aad u xanuunsan oo aan istaagi karin oo si degdeg ah loo jeegareynayo waxaas xanuunkaas kusoo booday uu yahay oo x-ray-ga oo mobile-ka ah oo lasoo wado loo keeno asoo jiifa oo xabadkiisa loogu saaro taas waxay keenaysaa in oo muxuu ahaa xabadka waxyaalaha qaar oo PA si clear loo arkayay oo sidii aan clear loo arkin sida oo muxuu ahaa costophrenic angles oo ah angleyaashan oo labada gees oo diaphragm uu ku dhamaanayo in waxaa laga yaabaa size-ka oo wadnaha uu noqdo wax aad iyo aad u weyn oo loo maleeyo qofkii inuu ku dhacay cardiomegaly ama heart failure qofkii inuu ku dhacay in hal qayb ka mid ah sambabkii oo density-giisa oo loo arko in uu bato
marka waxaasoo dhan marka waa qofka in oo uu ku fikiraa haddii oo qaabka loo qaaday muxuu ahaa chest radiograph uu yahay AP view oo PA view-ga qualitygiis macnaha usan gaari karin, macnaha AP view ma gaari karo PA ayaa mar walba qualitygiisa fiican yahay. kan oo muxuu ahaa lateralkaasna wuxuu ku fiican yahay haddii PA view aa qaadid oo lateralkan oo qofkii laga qaado in oo labadood oo ay isdhamaystiraan, macnaha haddii abnormality meel aa ku aragtid in meesha uu yahay muxuu abnormality inaa ku arki kartid, sababtoo ah xasuusnow sawirkan oo chest radiograph-ka ah waa sawir oo 2D ah, macnaha sawir oo 3D ma ah. 2D waxa waaye sawir oo muxuu ahaa aan ku tilmaamaynin saddexda oo dimension uu leeyahay. So marka waxaa laga abnormality inuu meeshan yahay ama meeshan inuu yahay ama meeshan inuu yahay ama meeshan inuu yahay. markaa fiirinaysa sawirkan makuu sheegi karo, waxaa laga yaabaa shay meeshan inaad ku aragtid. So marka shayga meeshan ah meeshan muu ahaa dhibaatada ama meeshan ama meeshan ama meeshan makuu sheegi karo. xasuusno marka PA view-ga waa 2D oo sawir 2D ah, laakiin xabadkaaga waa 3D, waa shay oo muxuu ahaa 3 dimension ka kooban oo intaas meel noqon karo oo muxuu ahaa u baahan tahay qofkii inuu ku fikiro. So marka haddii oo marka dulmar aan soo marno oo aan soo koobno cashirkan, waxaan soo dhahnay x-ray-ga ama chest radiograph waa tool aad iyo aad muhiim u ah oo waxyaalo badan diagnosis loogu samayn karo. wuxuu u baahan yahay si caqli oo xikmad leh in loo isticmaalo oo aan abuse lagu sameynin. haddii abuse lagu sameeyo oo qof aan u baahnayn la iska saaro oo dosage badan oo radiation qofkii la siiyo ama qof aan aqoon u lahayn oo meel iska furtay oo macnaha oo ku shaqaysanaya haddii uu yahay oo qof walba oo u imaada oo saarayo xataa aan aqoon interpretation aan ku samayn karin, taas waxaa waaye halis, sababtoo ah qofkaas naftiisana halis ayuu u keeni karaa oo asaga oo dose badan oo radiation, sababtoo ah the more dose oo radiation oo qofkii uu qaato the more halis ugu jiro cancer inuu ku dhaco. kansarada qaar sida leukemia oo kale iyo soft tissue oo cancers oo qofka ku dhici kara, waxaasoo dhan waxay u keeni karaan dhibaato. waxaana muhiim ah tool markii qofku isticmaalayo waxay ku xiran tahay macnaha qofkaas aqoonta uu leeyahay ama experience uu leeyahay. haddii lagu dhiibo muxuu ahaa shay macnaha craft oo aadan aqoon u lahayn wax aad ka keeni kartid malaha, laakiin qof aqoon u leh sida qof sameynaya anything macnaha ha ahaato instrument, ha ahaato shay walba ahaado, guri la dhisaayo ha ahaado, baaskiil la sameynayo ha ahaado, qof oo muxuu ahaa mindi sameynaya ha ahaado, waxay ku xiran tahay aqoonta qofkaas uu leeyahay. haddii qof aan aqoon u lahayn waxa u dhiibtid wax uu ka keeni kara ma lahan. soo marka qof aan aqoon u lahayn radiograph haddii gacanta aad ka saartid abuse ayuu ku sameynayaa, mana sharxi karo meeshii pathology ka dhacay, naftiisna halis ayuu gelinayaa, qofkii xanuunsanaan radiation badan ayuu siinayaa, pathology-ga dhibaatadii haysana ma u sheegi karo. waxaa muhiim ah markii x-ray qofka uu interpretation ku sameynayo in uusan sahalsanin oo uusan raadin meesha dhibaatada kaliya ee ka jirta oo kale, oo kadib uusan jeegarayn si oo thorough ah oo complete ah. airway uusan jeegareynin, lafi uusan jeegareynin, wadnihi uusan jeegareynin. cashirka saddexaad ayaan ku baran doona haddii alla uu idmo si systemic ah oo loo jeegareeyo. waxaa kaloo muhiim ah dadka isku qaldaan macnaa waxa loo yaqaan radiographer iyo radiologist. radiographer waa qof Bachelor of Science 3 sano soo bartay sida loo qaado radiograph of CT ama MRI ama chest x-ray. radiologist waa dhakhtar 5 sano ama 6 sano medical school soo dhigtay kadibna specialist ku noqday macnaha radiology. waa labo shay oo shaqo isku lahayn oo kala duwan. radiologist waa qualified medical doctor, radiographer waa qof soo bartay sida loo qaado sawirka. inkastoo radiography-yaasha qaar ay sameyn karaan muxuu ahaa training kale ama diploma kale oo ay noqon karaan diagnostic radiographer, laakiin waa labo route oo kala duwan oo shaqo isku lahayn. dadka qaar oo isku qaldo oo ama si interchangeable u isticmaala ayaa jira. waxa uu yahay radiographer iyo radiologist. soo marka xasuusnow radiologist waa qof highly macnaha oo experienced ah oo ku dhawaad 9 sano ama 10 sano oo muxuu ahaa medical school soo maray kadibna specialist ku noqday radiology. taasar hor usoo sharaxnayn si xikmad leh waa in loo isticmaala muxuu ahaa x-ray-gan, sababtoo ah
the more exposure oo qofka lagu sameeyo unnecessary the more oo risk qofka ugu jiro dhibaato inay kasoo gaarto oo iskugu jirta radiationkii oo bata oo marar badan oo isku xigta la saaro asagoo wax faa'iido ama qofka saaraya sabab u saaraya xataa uusan ogeyn oo faa'iido oo kaliya uu ka raadinayo marka waxaa muhiim in qofka saarayane inuu asana is ilaaliyo qof kale uu ka ilaaliyo dosage oo radiationkiisa hadhowna haddii uusan aqoon u lahayn inuu tarjumo oo u gudbiyo qof oo qualified oo tarjumi kara radiograph-kaas wuxuu yahay oosan isku dayin qofkaas inuu sharxo oo waxba aan ka ogeyn sawirkaas u soo baxay waxa uu yahay